بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel ba adduunka aad ka joogtaan oo naga daawanaysaanba ku soo dhawaada TV-ga caalamiga ah Somali Channel waa barnaamijkeeni daldhisan alaaba galab walba jimcaha xilligan oo kale aan hawada idin soo marin jirnay barnaamijkana sida aad ku barateen ba ah barnaamij lagu boorinayo laguna dhiirigelinayo inay dadku dalkooda dhistaan oo bogahooda dhaydaan oo isku tashadaan ayaanu galab walba waxaan ku soo dhaweynaa cid allaale ama area walba oo ay horumar iyo dhaqdhaqaaq ka socoto waa nagi niri warma tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya way isdaba socdaan runtii dad badan oo dadaalay oo dhaxal xirtay baa jira oo Soomaaliyeed wigii hore waa nagi Burca iyo Boorame iyo Beledweyne iyo Muqdisho iyo Garowe iyo Galkacyo soo marnay maanta waa Caabud Waaq waa Siyaad Barre International Airport halkaas oo flight-ka aad galabta magaalada London ka raacdaa aad biris wax oo kale aad Caabud Waaq ka degan kartid wii ka horbeeyay dhowr hal sano ka horbeeyay baan u maleynayaa markii barnaamijka daldhis iyadoo ciid guduudii la falayo aad ka daawateen maanta waxaan idin haynaa diyaaradihii ka degaya iyo dadweynihii booqanaya balse intaan ku talax tagin farsamo yaqaanka ayaan ku wareejinayaa warbixintan noo soo daayay in laga soo diyaariyay garoonka iyo meesha xaaladdu marayo Siciidaye Caabud Waaq International Airport waxaa dhismihiisa ka wada qayb qaatay shacabka ku nool magaalada Caabud Waaq iyo jaaliyada u dhalatay gobolkaas ee ku dhaqan wadanka dibadiisa airportkan ayaa dhererkiisu waxa uu yahay 2100 mitir balciisuna waa 40 mitir dhaqaale ahaan garoonka waxaa ku baxay $850,000 dhismaha airportka kama aysan qayb qaadan dawlad iyo hay'ado caalami ah waxaana dhabarka u ritay si iska wax u qabso ahna oo dhistay dad shacab ah kadib markii ay ogaadeen baahida ay u qabaan in ay helaan airport ay ku duulaan kana soo degaan maalintii ugu horeysay ee la dhagax dhigay airportka Caabud Waaq International Airport waxaa bulshada ku dhaqan magaalada Caabud Waaq ay u ahayd maalin ciid ah taasoo ay ka wada qayb qaadanayeen sidii ay iska kaashan lahaayeen sida iska wax u qabso ah ee u dhisanayaan garoonka Caabud Waaq xilligii dhismaha airportka uu socday waxaa maalmaha qaar ka shaqayn jiray ilaa 80 iska rogo kuwaasoo isku daba marayay rogista iyo dejinta jayga garab socday ruulada oo garaacisay dhulka gareydarka oo asna simeeyay jayga waxaana sidoo kale har iyo habeenba aan ka nasan gudiga gacanta ku hay airportka oo ka koobnaa 22 xubnood muddadii uu shaqaynayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabud Waaq waxaa ka faa'iideystay oo ka duulay kana soo degay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya sida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Saacid wasiirkiisii arrimaha gudaha wasiirkiisii gaashaandhigga ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano iyo aqoon-yahan aad u fara badan waxa ayaguna garoonka Caabud Waaq muddadii uu shaqaynayay ka soo degay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo hawlo shaqo u soo aaday gobolka Galgaduud ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Saacid ayaa markii uu ka duulay airportka Caabud Waaq ku amaanay bulshada reer Caabud Waaq waxqabadkooda kuna tilmaamay in ay mudan yihiin ku dayasho oo magaaladiina nagu sameyseen waan kaga mahadinaynaa hawsha quruxda badan oo aad ka duulayno oo aad dadaalkiina ku diyaariseen aad u weyn baan kaga mahadnaqaynaa sida maanta Soomaaliya u nooshahay marka la eeganayo waqtigan soo mareen dadku ayagaa wada diyaarsada hawlahooda waa waajibna waad gudateen annaguna dawladdu iyo sidii hore ka tabarroo mid baan nahay waan ogaadinaynaa dhanka kalena airportkan waxaa si weyn uga faa'iideystay ayaguna xujayda sidoo kale abukaan aad u fara badan iyo hay'adaha caalamiga ah ugu dambeyntiina airportka Caabud Waaq oo lagu dhisay lacago ay iska aruuriyeen dad shacab ah ayaa hadda toddobaadkiiba waxaa ka soo dega ilaa 3 flight oo u duusha kana timaada caasimadda Soomaaliya airportkan waxaa 2 bilood ka hor soo gaaray qalab cusub oo iskugu jira ruulo iyo grader looguna talagalay balaarinta garoonka waxaana ay ku fadhiyaan ku dhawaad $100,000 waxaana gacanta ku haya gudiga garoonka hay'ad iyo dawlad midna uma soo gadin ee waxaa soo gaday shacabkii hore aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Salaad oo warbixintaas magaalada Caabud Waaq naga soo diray waxaan leenahay indhihiina ku aragtaan diyaaradii ka degay
iyo dadweynaha booqanaya waxaa maanta barnaamijka marti noogu ah cabdi maxamed warsame deeq faande loo yaqaano oo kamid ahaa dhalinyaradii qurba joogta dhexda u xiratay qayb weyn ka qaadatay inay garoonkani uu suuro galo aad baan kugu soo dhaweynaya barnaamijka qurba joog dadaalay oo sidii aan dantiisii ka adkaaday oo heli karay runtii shaqo fiican haystay oo heli karay inuu noloshiisa dhinac kale u raacdo maxaa kugu dhaliyay inaad ciid gaduuda caabud waaq aad ku dhiiratay halka aadid waxaa horta igu dhashay baahida ay dadka deegaankaas jooga ay u qabaan aeroboortka waxaa kaloo igu dhashay mataqaanaa inaan dadka deegaanku ayna helno garoon aan ka degno waxaa kaloo igu dhaliyay qiso 3 sano ka hor ayaa waxaa baxay Soomaaliya aaday gabar aan dhalay iyo wiil iyo hooyadeed waxay ka degeen berbera diyaarad bay ka raaceen gaalkacay tageen diyaarad u socdeen ba waxay ku noqotay diyaarad xun oo mataqaanaa qiiq iyo oxygen lahayn oo dhibaato miiran masana waxay noqotay sana track kale oo 2 saac oo wada rafba iyo mataqaanaa baabuur safety-gooda fiicnayn iyo jid xun inay sii maraan markaas aniga kaligeena ma hadee ummadii jaariyadii deegaankaas ka soo jeeday iyo kuwii joogay oo xaq ahaantii shaqo aad dadka gudaha jooga hawsha xooggeeda qabtay waana ugu mahadinayaa shaqada adag ay qabteen dadkeena dibadda joogana meel kasta joognayna waa u dadaalay wixii aan awoodno inaan u dirno aan waxna aan ka garan taas ayaana nagu kaliftay inaan helo waxaana de nasiib haddana noqotay in aan hadda direct markaad halkan ka duusho oo halkan aad ka baxdo maanta noo noqotay inaad halka galabta ka cararado bari intay gaareen 4 saac subaxnimo inaad aan caawada joogto oo dadkii oo qoocan aad la quraacdo beerkii lagu kariyo beer kulul aad ka cunto meesha ma sha Allah cajalada la socdo beerka cajalada hadda halka ugu gudubno maxaa qabsoomay marka airportka waa la dhistay diyaaradii waa degtay sidee magaalada iyo dadka uga macaasheen waxay ugu macaasheen airportka de faa'iido weyn baa helo anka dadka anaga kaliya ma ahayn wax ka faa'iideysanaya airportkan airportka soo ogtiinba waa weelan waqaf oo qof kasta oo Soomaali ahaynba muslim ahaynba waa ka soo dega waxa kale faa'iido airportka u keenay dadkii inay adduunkii intay taraag dheer iyo waqti badan meel ba soo mari lahaayeen inay direct ku tagaan xamar iyo muqdisho hal saac loo socdo diyaaradda ay ku tagaan faa'iido u keenay waxa kamid ah in airport laftigiisu oo shaqo soo kordhiyo dadka deegaanka soo kordhiyo oo hadda waxa ka shaqeeya dad konton gaari ka shaqeeya hadda oo iskugu jira kuwa airline dispatch kugu jira kuwa diyaaradda raraya ku jira kuwa agency diyaaradda u shaqeynaya ku jira waxa ku shaqeeya security-ga airportka ku jira iyo shaqaalaha guud airport ka shaqeynaya nooc qaybaha kala duwan ay cleaners ahaayeen iyo kuwa canteen ka shaqeynaya hadday ahaan lahaayeenba marka faa'iido buu keenay waxa kale uu keenay mataqaanaa kii xanuusnaa inuu ka dhoofo kii kalena inuu dadkiisa soo booq rabaan inuu yimaado wuxuu kale faa'iido u keenay sida ujeedaba dawladda Soomaaliyeed inay oo marka u socoto deegaanadaas inay ka degto oo ayada facility-ga isticmaashaba oo ayada lafteeda xagga dood ahaan bay faa'iido uga kordhiyay wuxuu kale faa'iido kale u kordhiyay anaga kaliya ma wax isticmaala Soomaaliland dadka deegaanka kaliya ma wax isticmaala dadka u dhow dhan ba isticmaala for example dadka Soomaalida Ethiopia isticmaala oo kilka shanaad jira waxa kamid ah dadka isticmaala garoonka dadka deegaanada sida Wardheer Caleen Neef ku Cishe Laasacaanood Ceel Baxay iyo kuwa kale marka faa'iidaysi hadda waa waxa noqotay global inay gaartaba oo aad u fidaba anaga kaliya dhaaftaba Ethiopia u gudubtaba oo cid dad badan isticmaalaan door inta laag bay ku qaadanaysaa waad leedahay qurbo joogta waqtigooda xoogaa si ama security ahaato jidka la sii marayo nabadgelyo ahaan uga baqi jiray inay hadda ohaaye inta ka soo duulaan u buris waxaan jaladaas doontaan waba ku noqoto de aniga kale waxaan kamid ah dadka fuliyaasha oo aan jeclayn dhulka inay muraabaqa doortaan ku sheego halkan talaadan ka baxay habeenka inta talaada ka baxay waxaan habeenimo 6 saac waxaan ka duulay Turkey direct waxaan tagay subax maalinkiina cawdaq joogo taas faa'iido badan bay keentay adoonan maray Dubai oo meel kale ka wareeganayn bay sameysay marka waa wax muhiim ah oo aad u muhiim noqotay anka kaliya faa'iido kale u tartay waxa faa'iido kale oo link u tartay Muqdisho kale oo diyaarado badan inay Muqdisho base ku yeeshaan oo faafo gobolada Soomaaliyeed kale marka dad gobolkaas waxay tagtaa weegiba 3 diyaaradaha taga cawdaq oo marka wiir taayna waxay tagaan midiba 2 jeer tagto marka hadaysan Muqdisho laftigeeda bay shaqo badan u kiri galsiyay diyaarado badan inay keento hadaan goranaas jirin kaasi kuwa la mid ka ahba Muqdisho laftigeeda ay bay effect gareyn lahayd laakiin waa wajid hada magaalada Soomaaliya isku xirkii dalkii iyo dadkii in shaqo even Muqdisho laftigeeda ka kiriyad gareyso oo diyaarado ka soo base ku noqdaan Muqdisho ayaga sahashay taas aad dhinaca kale hadan ka fiirino waxa taabatay doorka ay dadka wadanka jooga ay ka qabteen runtii waxa la tilmaamay dad xataa xoolahoodii gaday
si arrintan u fusho lacaga isku dardaray dhinaca qurba joogta maxaa qabateen idinku waa war fiican waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa mar kale inaan ugu mahadceliyo dadka deegaanka jooga dadkaasu shaqo aad iyo aad u adag bay qabteen oo xoog badan bay qabteen oo fiican bay qabteen oo muhiim ay qabteen waxaan kaloo qurba joogtu gabdhaha iyo ragga dibadda joogaba mushaarkoodii qaarkood mushaarkoodii bay baxsheen gabdho waxay dahabkooday gadeen xoolahooday gadeen wax alle waxay heli kareen bay ku deeqeen marka mar kale waxaan ugu mahadcelinayaa gabdhaha deegaankaas kasoo jeeda oo muujiyey geesinimo saa'ida muujiyey oo wax alle waxay hanti ayaan u quuray halkaasi waxaan mar kale ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka oo iyaguna dee geeloodii iyo arigoodii iyo hilibkoodii iyo caanahoodiiba ku qasaashay aaribodka si ay uga dhoofaan kooda xanuunsan uga dhoofo kooda soo degahay uga dhoofo keeda mid kastana u isticmaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa daldhis baan dhex jibaaxaynaa waxaa iga xasuusin muda haddii aad tahay adigu laftigaagu mid dadaalay oo dantiisii ka adkaado dalkiisa wax taraya goobta waa kuu furan tahay goobtaad rabto joog waxaa kaloo iga xasuusin mudana weega soo socda inaan booqan doono xamar weyne iyo ganacsiyaasha waaweyn ee mootooyinka ee barnaamijka daldhis aan kusoo qaadan doono barnaamijkan waxaa alaaba noo fududeeya mar walba gacan naga siiya amal express oo aafo walba oo iyo arrin walba oo bulshada soo saarataba doorkeeda ka qaadata annaguna waxaan leenahay haddaan nahay reer daldhis dee iyadaa dadaasho amuurihii yimaadaba adeegeeda idinkuna adeegiina u geysto dee ogsoonaada amal express baan leenahay aad bay u mahadsan yihiin dhinaca taleefanada ayaan fiirinayaa waxaan kaloo si toos aanu leenahay fikirkiina iyo aydiyadiina waad kusoo diri kartaan emailkaas daldhis@somalichannel.tv haddii aad is leedahay waxbaad qabatay barnaamijku waa kugu furan yahay halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum qofkaas waa ismaqli weynaa u malaynayaa waxaa iga xasuusin madana mar labaadaan ku celinayaa haddii aad tahay qof dadaalay oo howlaha dalka ka qabtay barnaamijku waa boorintaada iyo dhiirigelintaada waxa loo aas-aasaba in aad lagu boorigeliyo sida ay dad kale in kugu daydaan ku dayashadaas annagoo ka hadlayna runtii wax weyn la qaban kara weeye gobollo badan oo kale oo sidoo kale oo tartanka wuu jiraa dhinaca khaatimo airboor weyn baa laga sameeyey burco airboor weyn baa ka socda oo halkan gidigood dildha soo maray qurba joogta kale oo gobollada kale jooga maxaad fariintaad baa u diri lahayd horta waxaan u mahadinayaa soomaalida dhan meelay joogaanba inay iskaashtaan oo wax qabsadaan qurba joogta waxaan leeyahay meelaad joogtaanba walaalayaal wadankiina iyo dadkiinaba adinkayna sugahayaan haddaad dhakhtar tahay haddaad injineer tahay haddaad nin xoolo haysta tahay aan especially dadka deegaankaas kasoo jeeda waxaan leeyahay war dhulkiina haddaad nin kastoo khibrad iyo aqoon kastoo leedahayba dhulkaaga tag soomaaliya tag meel kasta tahay waa loo baahan yahay adinkuna maal gashta hadday airport tahay hadday warshad tahay hadday wax kasta tahay hadda waxa kale oo dadku deegaanada kasoo jeeda ay wadaan inay hawsheedan hadda weliba socoto airport isaguna insha allah rajeynayo in maalmaha kamid halkan yimaado oo laga dhisayo doolow oo gobolka gado asaguna lastiis wuu socdaa hadda dadku waa u dadaaleen qeybaha kala duwan haddana waxaan leeyahay war haddaad ree ohaya tihiin iyo haddaad london tihiin iyo haddaad australia tihiinba airportkaas asaguna hadda socdaha laga qayb qaato hadda kan laftigiisa waxaa socda sidii loo weyneyn lahaa oo laga dhigi lahaa runways loo sii weyneyn lahaa la sameyn lahaa oo la keeni lahaa si diyaaradaha kaarga ugu soo xirtaan mar dhowna insha allah waxaan rajeynaa diyaarado in ka imaan doona Dubai iyo ka imaan doona inay kusoo xirtaan haddana waxaa loo baahan yahay qalabka sida demiska kale iyo alaabaha kaarga diyaaradaha kasoo dejiya waxaan kaloo rajeynaynaa dhawaan inay bilowdaan diyaarado ka dhex shaqeeya meesha la yihahdo Boosaaso iyo Caabud Waaq sababtoo ah dadkaas gobolada jooga gobolada dhexe oo dhan aad waxay ugu xiran yihiin Puntland Boosaaso ugu xiran yihiin sababtoo xamar gaari ka soo baxay wuxuu u socdaa saddex maalmood ama 4 maalmood ama 5 maalmood 5 maalmood ilaa 3 maalmood inta dhaxaysu socdaa xamar iyo gobolada dhexe gaariga ka soo baxa Boosaaso oo Boosaaso waliba ka fog wuxuu u socdaa 2 maalmood dadkaas aad waxay ugu xiran yihiin gobolada ganacsiga ee Puntland oo Boosaaso aad iyo aad bal dhinaca taleefanada aan fiirino qofka ku xigan fiirinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal qadka toos ugu jirta magacaaga meesha ka soo hadlayso tv-ga iska gaabi walaal aaladda aad iga daawanayso iska gaabi waan iska gaabi waan ka fogaaday magacaaga Ayub Cumar Boosaaso ayub soo dhawow Boosaasaad joogtaa haye maxaad ku daraysaa fikirkaaga waxaan ku darayaa horta waxaan usoo wacay aad baan ugu riyaaqa barnaamijkan daldhis gaar ahaan garoonkaas laga hirgeliyo Caabud Waaq aad baan usoo dhaweynayaa weli waxaan aad ugu sii faraxsanahay leenkii hadda ka sheekeynaysan Boosaaso
caabud waa aad baan ugu faraxsanaa leenkaas inuu furmo aircraftiga marka aad baan ugu hambaliyeynayaa horumarka ay sameeyeen dadka kale Soomaalidana waxaan leeyahay ku dayda walaalaheen horumarkaas iyo wanaagga ay soo bandhigeen aad iyo aad baad u mahadsantahay Ayib barnaamijka daldhisna boosaaso lafteeda uu kasoo wajahan yahay iyo dhinaca dhaqaalaha iyo businesska insha Allah wariyahana Maxamed Deeq Cabdalla ayaa hawshaas ku howlan sidii uu isugu soo dubaridi lahaa طبعا dadku mar walba way ku farxaan oo ana runtii hambay gelisaa inay arkaan markay dalkooda arkaan oo kale dadka business minded ka ah ama ganacsi maskaxeed basaaran yihiin fursad weyn ba halkaas hadda waxa ka jirta hadii diyaaradii inta soo falayda way ka dhigayaan hoteelo waaweyn oo airport u dhow iyo ganacsiyo waaweyn in lagu dhiirado qurba joog waxa laga yaabaa wadanka gobolka laftigiisa ka soo jeeda inay ganacsiyo waaweyn East Africa iyo meelo kale ku leeyihiin ma isleedahay waxa la gaaray waqtiga ay ku dhiiran lahaayeen oo ciidooda ku kala soonaan lahaayeen wadankooda investment ku soo lahaayeen waa hadal fiican way aad ba u maasan tahay in daas aad bay muhiim u tahay hadda qaarkood way sameeyeen hadda waxa laga sameeyay laba shirkadood waaweyn oo koronto midna dayax leeyahay midna ilays leeyahay magaalada caawad waaqi deegaanada ku dhow oo mataqaana supply gareyn kara electric ilaa degmooyinka ku dhow dadka kuwa jooga gudaha iyo kuwa dibadda ba sameeyay dadka waxaan leeyahay deegaanka u dhashow ina adinkuna sidaas ka badan sameysaan oo intaad maalkiina gelin lahaydeen Nairobi iyo meel lamid oo bari carari lahaydeen markii doorasho dhacdo war imaada oo dhulkiina maal gashta meel kasta joogtaanba Soomaalida kalena waxaan leeyahay waa artay Nairobi soo dhisnay muqdisho waa arday u jaban tahay gobolada kalena waa artay si dhibaato uga jirto marka walaalayaal dhulkiina meel kasta aad joogtaanba hadduu ay kuwaas yahay kuwa kaleba yahayba imaada oo dhulkiina maal gashta dhibaatada waa naga yaraanaysaa shaqo abuurmaysa nolol baa la helayaa dadku waxa isku daray waa shaqo laanta inta badan iyo mataqaanaa gaajada iyo faqriga qofka haduu gaajo iyo faqir yahayna weligiis colaad iyo dhibaato kama baxo in qolo soo rabto oo isticmaasho laakiin maalka aad gelinaysaan walaalayaal Kenya iyo kulli oo dadka tiin deegaankaas iyo kuwa Soomaalida kala tihiinba imaada waan ugu mahadcelinayaa walaalkii hadda ka soo hadlay Boosaaso arintaas sheegay walaal insha Allah waa bilaabanaysaa dadka aan horena u sheegay inaan isku xiranahay deegaankaas mataqaanaa Puntland iyo dadka gobolada dhexe aad ugu xiran yihiin wada tiirsan yihiin aad iyo soo dhaweynaa qofka xigaan fiiriyo dhinaca telefonka halo assalaamu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye walaashay magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso ku bilow soo daa uma farxiyaa leedahay waxaan ka soo hadlayaa holan aan ka soo hadlayaa maasha Allah aad iyo aad baan idin salaamayaa iyo wiilka walaalkeena oo fadhiya meesha maasha Allah airport-kayga iyo magaaladeeda aad aan ugu faraxsanahay maasha Allah waa wax aad loogu tirsado wax aad loogu farxo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii shaqeeyo oo inta ay horumarka sii weyn ilaahay naga siiyo magaaladeeda oo noo siiyo aad iyo aad uma farxiyo magaalada caabud waaq ba ku dhalatay caabud waaqan ku barbaaray waan kuma dhalan meel u dhow baan ku dhashay laakiin waa ku barbaaray airport-kaas oo la dhiso hadda adiga iyo caruurtaada iyo family-kaaga fasaxa waxaan u malaynayaa noloshiina uu fududeynayaa maasha Allah aad iyo aad ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo sii waaro walaalaha ka shaqeeyay iyo kuwii dhisay iyo kuwii lacagta ku darsaday iyo kuwii abaabulka iska lahaana ilaahay jazadooda jannaha ka dhigo insha Allah biidnillaahi kariim waa inoo fasaxa dambe aad baan ugu faraxsanahay dad badan baan ku liimaanay meelo fog baan kasoo degan jirnay oo ka iimaan jirnay riskiya badan baan soo geli jirnay markii la imaanayo magaalada maasha Allah wax lagu farxo oo lagu diirsado oo maaragtay aad loogu farxo waaye aad iyo aad waa mahadsantahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtay ay noo noqoto midkii sii taabagalo oo ka badan iyo wax kasii wanaagsan ay noo qabtaan insha Allah amiin rabbi aad baa mahadsantahay walaashay dila ka muuqata dareen nacay runtii ku dhalinaysa hooyo qurba joog ah oo runtii caruur badan wadato xanimneed la oran karay oo hadda saas dareemayso caruurtii u sii diyaarinaysa sanad walba inay geyso wallahi waxa muhiim ah ugu dhalinaysa wallahi waa waxaan la qiyaasi karin way because aniga igu dhalisay inaan halkaan ano Soomaaliya ugu dambeysay xilliga deegaankaas waxa ugu dambeeyay 28 sano ka hor inaan tan tago laftigaygu aan garoonkii ka dago oo aanan igu qaad inaan magaalo kale iyo meel kale sii maro hawshaas oo hirgeliyeen dadka deegaanku aad baan mar kale ugu mahadcelinayaa dadka deegaanku oo hawshaas qaybta ugu muhiimsan qaatay waa ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan dhahayaa war adinkuna sidaas si lamid ah sameeyo waxaan kale oo rabaa halkan
waxaa jooga hadda aan ku daro guddi maamulka Cawdaq Airport Authority kamid oo maamulka Cawdaq hadda xamar jooga oo dowladda hadda inay la kulmaan raba oo inay qaarkood inay la kulmi doonaan dhawaan aan rajeynayo especially wasiirka gaadiidka cirka dhulka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed war anagu hawshaasaan qabanay intaasaan gaarsiinay wadna noo jeedaan meesha marayso waxaan ka codsanaynaa inaad adinkuna garoonkaas iyo kuwa la midka ahba aad caawisaan waxaad ku tari kartaan ku caawisaan marka qaarkood hal diyaarado aad ku aadeen wadan kale qiimaheeda wax weyn noo tari karaya marka walaalayaal waxaan ka codsanaynaa hadda dowladda Soomaaliyeed tihiin dowladnadina tihiin nacaawiyo garoonka halkaasaan gaarsiino hadda sidan terminal cargo lagu sameyn lahaa laami looga dhigi lahaa baan ka shaqeynaa inta nagu taakuleeya baan ka codsanaynaa waxaan rajeynaynaa mar dhow in hadii Ilaahay idmo in guddiga Cawdaq Airport Authority ay iyaguna Europe iyo meesha la yiraahdo America ba ay ku imaan doonaan fariisin baan rajeynaynaa إن شاء الله ودتكاسنا وحلينا ذلك ما شاء الله وضو كود بدأ شغلنا شقيا يعني الله إن شاء الله أدياد بنبورينا أنا قلفتي ردان نهاي بعد دلسنا وحن لا يرنتي هلا جرب يستاجو دولة دلفتي كذا هلا تاجرو دولة هذا غير كذا دتكي سيدا سكلا ودة هلا جرب يستاجو بالغف كحيل عن فيريو هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه والله تيفي كذا خير الله كسيه ما قاعد مش كسال نسكبلو. walaalow waxa la dhaafaayo waxaan ka soo hadlaa London hadda waxaan rabaa booyina ugu mahadceliyo dadkaas walaalaheena oo shaqada badan qabtay oo ma sha Allah si fiican waxa la filayay meeshaas aan maaragtay oo aan awal hore ku fikiri jirin baba hadda helnayba ma sha Allah waana ilaahay inuu khayr siiyo miisaanka xasanaadka ugu qabaan rajeynayna ka qayb qaadatay intii ka shaqaysaba amiin aad baa mahadsantahay walaashay warantii waa fariin ku dhiirasho mudan baalna talaabo ku dayasho mudan meel walba aad joogtaan waxaan hadaan bahda dal isnaalnahay qof walba oo dhexda xiro dalkaagi anaga burburinay bal sidii aan loo dhisi lahayn burburintu waa naqaanaay walaan adduunka tusna inaan dhisan karnana oo aan runtii aqli cilmi waxaan aynu isugu geen karno bal qofka xigaan fiiriyo assalaamu calaykum walaal magacaaga meesha ka saarnays walaal kama hadda leeyahay aye magacaaga soo daa fikirkaaga والله أتقاعد معايا أيه والله حقا قال ذا كلمة والله وحن لا هي بكل والله الصومالية دولار ورمل بيك يعني إلى هنا هو والله إذا كان هذه والله إذا كان بدأ تيجي لطافة تكتب على سحر جدا والله ما كان تقول ما فايا ولا إذا كي يعني تقول ما تقول الصومالية ما يعرفون شيء سوى فايا ولا هذه والله كان صومالي ممكن بعيد بعيد كقال داري بعيد وكقال واحد كتب على الموت هذه marka fayda waxa soo kordhisay inoo ninka tiisiga fadhiya ninka kale wadaba ilaahay midna ay siiyay aan gargaro هذه هذا ما صنطة جزاك الله خير أنا أمين بالنا هاي دعاءنا ومهم إذا كنا وحنا لنا عمل بجوكتان رنتي اسكو تشدا ودحدا ديستا ومركله وبرنامج كان يدلس وحاجه حسوسن مدنا مركله هدي اتahay adiga laftigaagu midadaalay oo arintan dhiirigelisay ama joohar dhiso ama jamaama dhiso ma meesha rabto joog dalkaagi aad isku dayaysid inaad iskuul ka furtay ama airport ka furtay ama ceel barkad qodid barnaamijka daldhis garabkaaga ayuu taagan yahay nala soo xiriir waa daldhis@somalichannel.tv emailkaas insha Allah waxa laga yaabaa weegaga soo socda qofka ay hor fadhiyo inuu adiga yahay waxa kale iga xasuusin mudan oo aan leenahay waa mahadsan yihiin Amal Express oo mar walba barnaamijkan noo fududeysa waxaan leenahay masiibadii tibaadaba iyada qayb ka qaadatay idinkuna ogaado adeegiina u geystay ogsoonaada Amal Express aan ku soo noqdo runtii hididila ka muuqata dadka ku faraxsan yihiin targetkaas waa la gaaray ma isleedin hankiiba hadda weynaaday raacabadu waaqo ama badda ka distaama badba idima dhaweey haye waa runtaa hadda waa sheegna han weyn baa nagalay sababtoo ah wasiirada walaalka uu maasin u dambeeyo dhahayay airportka dadka waa noo dhisay ummadda airportkani dadka deegaanka dhisay laakiin airportkan waxa isticmaalkiisa qof kasta oo Soomaali u furan yahay qof kasta oo muslim u furan yahay qof kasta non muslim u furan yahay ma waa free condition kuma xirna cid kuma weydiinayso meel ka timid iyo meel u socoto cid kuma weydiinayso xaq baa u leeyahay ka dhoofto kana soo degto waan nagol hami ka weyn oo hadda waataan ku leeyahay waxaan rabnaa inaan sidii terminal weyn oo cargo loo dhisi lahaa airportkana u sii weynaan lahaa laami lagu bedeli lahaa because faa'iido Soomaalida u tiraya annako noo tiraya shaqo kaleed gareena faa'iido weyn ee waarta maanta si dadku inaan direct aad uga dagayso adoon meel kala marinba oo dhul marinba wax kala marinba adoo ogtahay dhibaatada hadda Soomaaliya ka jirto dhulka wadooyinka halaysan wuxuu dhan soo jibsan
waxaan desaasha war kale ugu mahad celinayaa dadka deegaanka ka soo jeeda especially gabdhaha aad u shaqeeyo hawl adag sameeyay kuwii geelooda gaday kuwa arigooda gaday ugu mahad celinayaa waxaan leenahay Soomaalida kale leenahay war intaan in ka badan waa qaban kartaan walaalayaal isku tashada wax sameeya wax tara dawladana waxaan leeyahay war dadka saas u dalaada ama ha noqoto airport ama ha noqoto kuwa kaleba taageera aad waxa kala xasuusin dabcan gabdhihii qurbo joogta iyo laftigoodu ayuu tadooda gadiyay daabkooda ilaa maalkooda galeen aad dhinaca telefonkan fiirinaya runtii wax walba la isugu tago waa gulba laga gaari karaa qof ku xiga halo assalaamu calaykum waa usoo noqonaynaa qadka telefonka waxaa iga xasuusin mudana mar kale iyo mar walbaba dhiirinayaa barnaamijka daldhis ujeedadiisu waxa weeye inuu dhiirogeliyo qof walba oo dhexda xirtay oo dalkiisii wax taraya meeshaad rabta joog qorshahaad rabta wad wixii dadka danta dadka iyo dalka ku jiro haddii aad arrintaa wadid daldhis garabkaaga ayuu taagan yahay nala soo xiriir waa daldhis@somalichannel.tv waxaa laga yaabaa weega soo socda qofkii hor fadhiya haddii alla idmo inuu adiga yahay hididiila way muuqataa target kale hami weyn baa la sii yeeshay waxaad is leedahay dhinaca taa security oo kale mas-uuliyiin baa imaanaysa ganacsi baa meesha imaanaya nabadgelyo dhinaceeda sidee bay wax ka noqonaysaa airportka la dhis waa wataanta ka hadla hadda dadka shaqaalaha kamid ah 30 kamid ah waxa waaye waa security airportka magaalada nabad weeye sadakaas waxay ka shaqeeyaan airport security-gooda marka airport security-giisu taas waxa ku cadeynaysa madaxda daily ka degtay waxa ka tagay wasiirada ka degay aan ahayn ra'iisul wasaaraha hore kaliya ahayn aad baan ugu mahadinayaa ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya ra'iisul wasaare Saacid oo si geesinimo ah say kaliya mu imaan Soomaaliya wuxuu ku tagay from Kismaayo ilaa Boosaaso Garowe soo maray marka waa ugu mahad celinayaa marka security-guna aad buu fiican yahay 100% waa aad dhinaca kale haddaan ka fiirino waxaa tiri gaalkacayaan ka baxay intaasoo saacadood baan sii socday wadada waa iska rab tuulooyin baa lasii istaagayay baabuur kolle waaweyn baa la wataa caanaa lasii gadanaya shaha baa lasii cabiyay dadku hadday cirka wada maraan muqdisho iyo gaalkacyo iyo boosaaso tuulooyinka dhexeeyaa shaha ka cabiyay soo caqabad hor lama horta waa run waa jirtaa wax kasta oo technology kasta oo adduunka soo horumarta oo wax cusub soo kordhisa wax kale dhibaato u geysata xaqiiq weeye in arintaas oo jirto intaas oo flight jiraan oo Soomaaliya hawada wada marayo oo dhulka la wada maray waa ognahay laakiin still wuu socdaa hadda for example every saac cawda waxa ka baxa baawur socota Garowe gaalkacyo iyo Boosaaso every hour marka wali tiin ma dhamaano ummaddu kaliya diyaad ma raaci karto marka la taas ayadana jirta oo wali way socotaa waan ugu mahadinayaa aad qof ku xigan u gudbiya telefonka halo assalaamu calaykum waa ka go'ay qofkaas bal dhinaca kale aan fiiriyo qofka ku xiga halo assalaamu calaykum ha walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysid halo assalaamu calaykum uu ka go'ay qofkaasna waa iga xasuusin mar kale waa daldhis@somalichannel.tv ku dhiiro dhulkaaga ku dhiso qurbo joogta waliba ganacsatada waaweyn oo Afrika iyo Carabahana waxaan leenahay timekii waxa la gaaray aad u hiilin lahaydeen dhulkiina hooye aad ku kalsoonaan lahaydeen waad aragteen bahdilada ka socda meelihii aad xooggiina iyo qarashkiina gaashateen karsaaniba ka koobtahay xabsiyadii lagu gurhay dadka masaakiinta Soomaaliyeed la rafaayay South Africa kamid ah oo security-geeda iyo ganacsiga Soomaalida aad loo gubayo waxa la gaaray baan leeyahay ama caabud waq joog ama ceelbur joogi waqtiga aad dhulkaaga ku kalsoonaan lahayd oo ganacsiga geysan lahayd waxa ka faa'iideeyay oo ka shaqaysanayna waa wiil walaalkaaga alo assalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي والله شيء ما قاعد ماشي كسر ليش. ما قاعد وحلا يراد سهرة عبد الله وحن كسر خلا يا مريكان كما قال هذا أوهايو. أهلا وسهلا رأي أوهايو سودو هذا. وندونا هاي لكن واحد دوني برنامج كماشي كسر هذا. ولا هو برنامج كلفتي يصير لايف باتوس وجرتا وعوالا نيكو كل هذا ليه رأي أوهايو وليه برنامج كان قاعد بوصل وين يا قبل واحد كقاعدين هاي. anigu waxaan ahay qof Soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa oo kulay barnaamijka inkastoona intiisii hore la soconin wax aan hadda u jeedaa ina waxda dhisme iyo dal iyo wax uun laga sheekeynay kulay waxdanaha dalka un baan u maleeyay marka waxaan leeyahay kulay Soomaalida Ilaahay khayr ha u siiyo Ilaahay ha u gargaaro Soomaalidu gargaar Ilaahay bay u baahan tahay dhibaatooyinka u badan ee haystana Ilaahay ha ka dhax qaada ee qabiilka iyo dulliga marka
des waan ku garab taaganahay unbay Soomaalidu istiraada garab taag hadal afka unbaa la iska garab taagaya wax garab taagana uma jeedno garab taagani waxaan u arkaa ina dadka wax lala qabto ina xataa wax maadartay dadka qurbaha jooga inay wax dadka u qabtaan oo ay gacanta wax muuqdo wax loo qabto laakiin Soomaali waan garab taaganahay habeen kasta xaflad baa la qabtaa been iyo riwaayad baa la dhigaa anu waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ha iska daayaan bahabahaada iyo waxa aan waxba ka jirin oo wax muuqdo ha qabtaan insha Allah way socotaa wata diyaaradu dagayso bal xooga aan buunbuunina intaan hayno yana negative-ka ku dheeraan walaashay aad baad u mahadsan tahay saharo bay ahayd farmaahayo oo dadkii uu sii dhiirigelinaysa laakiin xooga maaragtay intii aan haynana in la sii kobciyo Soomaalidu xilligan waxyaalaha ugu badan oo dhibaatada oo maskaxeedu haysata waxa la dhahaa airport baan u baahanahay proposal aan qorano UNDP aan aadno arintani waxay qirtay dhowrta la isu geeyay dhowr ariyo la xaraashay qurbo joog ayuu isku goray dadku hadday isku tashadaan inay boogahooda dhayan karaan arinta maxad ka leedahay waa runta horta aad baad u mahadsan tahay in adiga iyo Somali Channel ba waa run way daily waxa arkaysaa in UNDP Allah waftigan UN iyo wuxuu matalayaa UN ka socdaa iyo WFP ka socdaa war garoomada hadda kan iyo kan hadda qaatumo aan ka hadlaynay iyo kuwa hadda in baalka leeyahay kan doolo iyo kulligood iyo kuwa kale lamidkay UNDP na madis lacag hadda kan lacag milyan ku kacday qalab cagafyo weyn baa la soo gado midka konton kun ku kacay in waxa laga baxshay ariganagi geelanagi xoolahanagi gabadh saanta daabkeedii war waa uma baahna UNDP aan ka harna walaalayaal waxbaan qabsan karnaa waxbaan tari karnaa intaan in ka badan waa qabsan karnaa meel kasta ay joogto ay tahay haday tahay Muqdisho haday tahay haday Kismaayo tahay haday Boosaaso Hargeysa tahay aan waxbaan qabsan karnaa waana dadkuna inta in ka badan bay qaban karaan aad iyo aad waad maqlaysaan isku tashado hankiina kor u qaada tooksi iyo hay'ado caalamiya international community anaga soo gaarto warba soconaysa dadka isku tashadaan bal qofka xigaan fiiriyo halo salaamu calaykum السلام عليكم. أخي ماذا عايز وشك صالس؟ ولا لندن أحمد. أيه سودا فكرك يا ولال. تفكر إسكا قاعد نقول دعية. براد أكثر عن قاعدين. أيه براد هدوك بلا ورا لندن سودا. معنا إلى هذا ما أدري ما راح يكجر. والله إذا بدو شرتا وصومالي channel وضلت هي سودا. ولا waxaa ka hadlaysan samahan dalka la dhisay iyo airportadii wax zaman caynka weey marka hadii wadankii wada airport laga dhigo dadkii dhulkiina maxaa dadkii maxay baabuurtiin yaa raacayo su-aashaas horaan isu weydiinay dadku kuma wada filaanayo waxaa laga yaabaa in ka yar 10% toban inay diyaaradahaba awoodaan baabuurta ka badan laakiin su'aal meesha timid bay ahayd aad baad ugu mahadsan tahay laakiin waan soo dhaafnay su'aashaas aan isleeyahay gabagabadii barnaamijka aan soo dhownahay maxaa loo baahan yahay hadda see wax loo gaarsiin karaa waa maxay qurbo joogta doorka laga rabo qurbo joogtu waa resource aan dhammaan runtii markay tanoo kala arkaan oo ay resultigii outcome-kii boqolkii dollar isku diray wax looga munaafacaday arkaan qofku waxay sii gelinaysaa hami ah inuu marka ku xigto laba dhiibo si uu wixii wax ka weyn u helo soo daa waa mahadsan tahay waxaan halkan hadda wajiga ku xiga wuxuu yahay sidii loo weyneyn lahaa airportka sidii aan uga hadalnay sidii cargo looga sameyn lahaa sidii diyaaradaha hadda sida Boosaaso iyo bilaaban lahayd iyo kuwa Soomaalida Itoobiya aad iyo kuwa Dubai ba markan waxa u baahanaa in airport weyn u baahan yahay hadda guddiga oo arto waan tan sheegay guddiga airportka cawda qada waxay joogan in Muqdisho joogan qaar kamid ah kulligood maahan dawladda la kulmayaan oo hawsh bay ku jiraan sidii loo qaban lahaa loo kordhin lahaa waxaan leeyahay walaalayaal hadda dadkeeni hore oo dahabka gaday iyo inta lacag wax shil hayeen diray waxaan leeyahay maanta intii ka badan baan u baahanahay aan israacina hawsha meesha u dambeysay joogtaa in goolkan dhalinay joogtaa waxaan lagala xiriiri karaa guddiga cabud waaq 252 ama telefoon kale 252 658 eber 22 wala ga xiriirka guddiga cabud waaq waa guddiga cabud waaq jooga odayaasha laga xiriiri karaa dhalinyarada laga xiriiri karaa
dadka deegaanka oo dhan baa lagala xiriiri karaa wala hawsha hala wado halkaasna laga soo wado waxaana mar labadaba mahad celinayaa barnaamijkan Daldis oo qayb wanaagsan ummadda tusay dhiirigelin iyo adiga cawaala iyo telefishinka iyo shaqaalaha kulligood waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin shaqaha hawl adag baa haysan meeshaas ka wada hadda aad ka wadaan aad iyo aad waa adigana waa ku mahad celinaynaa annaguna mar walba waa dhiirigelinaynaa cid walba u istaagta inay dalka wax tarto ahamiyadda barnaamijkuna Somali Channel u sameeyay inta fikir la isu geeyana war sidee baan doorka Somali Channel ay uga qaadataa dalka in la dadiso halkaas ayuu ka curtay barnaamijka Daldis adigana ayuu ku curtay qurba joogow ganacsado ku soo bandhigo ganacsigaaga ku soo bandhigo wax qabadkaaga wadanka si aad adiguna uga faa'iidid oo wax qabadkaaga banaanka loo soo dhigo mid kale oo walaalkaayna uu kugu daysado isdhaho war hadduu hebel iskuul dhisay ama ceel qoday aniguna maxaan talo u qaban karaa barnaamijku ahmiyadiisu waa intaas haddii aad adigu tahay marka nin dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya goobtu waa ku furan tahay waxaa laga yaabaa maanta deeq fanda ila jooga weega soo socda inuu adiga yahay qofka ila jooga waxaa iga xasuusin mudan runtii inuu barnaamijku mar dhow booqan doono magaalada Muqdisho insha Allah xaafada Shingaani waliba iyo ganacsiga waaweyn oo ugu socda oo hadda mootooyinka saddex lugooleyda ah waxaan runtii anoo fursada ka faa'iideysanaya ogeysiinaya insha Allah inuu barnaamijku also weega soo socda oo idin kaga imaan doono Friday-da 12 bisha oo idin kaga imaan doono magaalada Youtube halkaas oo ka dhici doono shir weyn oo ay ka soo qayb galayaan wasiirka waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame iyo duqa magaalada Muqdisho Master Mungab iyo madax kale waaweyn duqa magaalada Gaalkacyo kala jooga waa 12 bisha iyo magaalada Youtube iyo xaafada Xamar Kulan baan leenahay waa Somali diaspora ururka jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Scandinavian-ka ayaa arinta qalqaaliye insha Allah wixii qoraal faahfaahinana shaashada ayaad ka arki doontaan gabagabadii waa la joogaa waa maxay baaqaaga u dambeeya oo general Soomaali u direys haddaan Soomaali waxaan leeyahay dadka waxaan rabaa ugu hormaro dawladda iyo dadka Soomaalida waxaan leeyahay war dawladda walaalayaal taageer waxaan qabanay na taageera oo shaqo adag baan qabanay hawsha gabagabay noo martaa idinkuna qaybtiina ka qaata Soomaalina waxaan leeyahay war walaalayaal isku tiirsanaada aan waxaan qabsano cid UNDP aan ka harno aan ka harno nimankan WFP waa u jeedaan Soomaaliya meel kasoo joogto maanta wax way dhisaysaa waxa aad dhiirigeliyo kale oo dhulka Soomaaliya qaarkood wadooyin bay dhisayaan waa u jeedaa gormada way socdaan jidadka hadda diyaaraha ma wada raacayno jidadka dhismihiisa way socdaan hadda boosaasay ka socdaan oo garowe ka socdaan waxay ka socdaan Somaliland bay ka socdaan ayadoo dadku way wadaan marka walaalayaal aan iskaashano aan ka harno WFP UNDP aan hawshana wada dadka ka soo jeeda deegaankaasna waxaan leeyahay hawsh israacis bay u baahan tahay walaalayaal aan saraacina inta ka dhiman oo si aan u kaysan lahayn damiskii cagafyada inta noo hartay iyo ambulance iyo garoonka qalabkii kaarga diyaada laga soo dejin lahaa saan u samaysan lahayn aan iska kaashano guddigeena insha Allah inay noo yimaadaan Yurub yimaadaan bay u baahan tahay America oo fundraising u yimaadaan marka waa guuleysanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel joogto dhan waa salaamaya telefishinka mar kale ayaan u mahad celinayaa waana mahadsantiin walaal adigana mar kale ayaan ku soo dhaweynaynaa markii aad qodobka labaad iyo mashruuca labaad aad fulishaan Daldis mar walba waa goob idin furan dadka adiga oo kala guul ayaan ku rajeynaa halkaasna ka sii wad dadaalkaaga mar kale ayaan xasuusinayaa barnaamijku wuxuu kaga imaan doonaa 12 bisha September insha Allah magaalada Stockholm halkaas oo aanu insha Allah kula kulmi doono duqa magaalada Muqdisho Mr Mungab insha Allah iyo Cali Xaaji Warsame wasiirka waxbarashada Puntland duqa magaalada Gaalkacyo runtii madax badan oo shir weyn oo magaalada Youtube ka dhacaya waa 12 bisha September insha Allah hadii alla idmo barnaamijka Daldisna halkaas ayaan kaga soo tabin doonaa hadii alla idmo waa xaafada Xamar Kulan magaalada Youtube wixii farin dheeraadana shaashada qoraal iyada kala socon doontaan waa gudoomiyaha jaaliyadaha Scandinavian Soomaaliyeed ayaa shirkaas abaabulay hamoogan ha ka maqnaan baan leenahay waa Xamar Kulan Center mar kale aan oranayaa adiga ayaad noqon kartaa qofka next time marti noqon kara la soo xiriir barnaamijka wixii taladaada iyo fikirkaaga iyo mar walba waa la dhabarta barnaamijka waa daldis@somalichannel.tv emailka shaashada ku qoran tan iyo intaan weega dambe ku kulmi doono barnaamijkan oo kala waa aniga iyo farsamo yaqaan Cabdi Samed iyo martideedaba waxaan idin leenahay dhista dhulkiina wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh